Madrid caawa waa habeenkii Real Madrid iyo Karim Benzema caawa waxaa la xaaqay kooxda PSG. caawa Karim Benzema ayaa keligiis wuxuu ku filaaday oo karbaashay ciyaartoydii waaweyneed sida Messi, Neymar, Mbappe. waxaan koox maaha PSG, waa carab lacag iska wadata. carab lacag iska wadata ayaa caawa waxay iska soo doonatay garoonkii weynaa iyo boqortooyadii Yurub. Real Madrid iyo Diego Bernabeu haddaad maqashid. PSG oo ilaa iyo hadda la aaminsiin la'yahay iyadoo oohinta qabsatay lagana cirib tiray UEFA Champions League. kubadda cagta Real Madrid oo iska xaadirisay 8 dhamaadka koobka kooxaha qaaradda Yurub ee UEFA Champions League. war waxaana ciyaar laga dhahaa koox weyn, waa koox caalam. kooxdan Real Madrid koox wax laga qaban karaya ma aha, waa kooxda kooxaha Yurub. kubadda cagta Real Madrid ayaa u soo gudubtay wareegga 8 dhamaadka tartanka UEFA Champions League kadib markay guul soo laabasho leh ku xaaqday kooxda Paris Germany, kuwaasoo ay ku garaaceen 3-1. saddexley uu dhaliyay qaybtii dambe ciyaarta. Karim Benzema ayaa ugu filnaa inay Real Madrid u gudubto wareegga 8 dhamaadka UEFA Champions League. Mbappe ayaa iyagana u dhaliyay kooxda PSG qaybtii hore ee ciyaarta. waqtii hore oo ka dhacday wadanka Faransiiska ka gaar ahaan caasimadda Paris. garoonka PSG ayaa waxay ku soo badisay 1-0. waa ciyaartii hore ee ciyaartana goolka waxa u dhaliyay Mbappe ayaa isaguna caawa mar labaad Real Madrid gool kaga naxsaday oo joogta garoonkooda Diego Bernabeu. laakiin ciyaarta ayaa waxaa xagga kale u rigay ciyaaryahanka heer Faransiise ee Karim Benzema. kooxda Paris Germany ayaa ciyaarta qaybtii hore waxay ku soo gashay dardar xoog leh iyadoo dhaxda iyo garbaha kaga socotay kooxda Real Madrid. haddaba daqiiqadii 39aad ayaa waxaa goolka u dhaliyay ciyaaryahankan orodka loogu talagalay aad moodaysid faras. kubad meel fog uga soo tuuray saaxiibkiisa Neymar, kaasoo isaguna si caraga leh uu ku dhaliyay goolkaasi. gool lagaga dambeeya gool maahee laacibada Karim Benzema waa ninka gool magafaha Real Madrid kala wada, waa kabtankooda. waa muxuu caawa laacib ahaa 15 jir baad moodaa garoonka ku jira oo ciyaartii xagga kale u rogay. waxaana khibradda uga dambeeyey oo isaguna xagga dambe ciyaarta ka maamulayay waa koojka khabiirka ahee Carlos Ancelotti. alla maxaa khabiir la yahay, khabiir maskaxdu ku duugan tahay. ciyaarta qaybtii dambe ayuu haddaba wuxuu sameeyey isbeddel shaqeeyey, kaasoo uu ciyaarta uu ku soo galay shaxdii. intuu bedelay daafac ahayd ayuu wuxuu ku soo galay weerar, waxaana ay noqotay kabtay ma aragtay baa ku dhacday Paris Germany. mar ayaa waxaa la arkay kooxda Paris Germany oo dhexdoodii iyo daafacoodii iyo goolkiibahoodii isku dhex yaacay, iyo ninkii Neymar ahaa iyo Messi iyo Mbappe oo iska taagan cidlo oo aan kubadiba soo gaadhayn. waxaa dee kubaddii afka u dhigtay kooxda Real Madrid. haddaba Karim Benzema ayaana ciyaarta barbareeyey daqiiqadii 61aad isagoo kubad hadiyad ahayd ka helay goolkiibaha Paris Germany Donnarumma. isaguna wuxuu ku dhammaystirtay, waxaana markaa uu goolka u sii dhiibtay laacibkiisa Junior, isaguna baas qurux badan dib ugu celiyey. waxaa xidiga heer Faransiis uu si dhammaystiran lugta midig ugu dhammaystiray goolkaas. alla muxuu gool ahaa. mar kale haddana Lucas Modric ayaa kubad halis ahayd dhexda ka soo jiiday, isaguna wuxuu dhinaca bidix ugu sii dhiibtay Junior, isaguna maxaa la dhahaa mar labaad ayuu wuxuu dib ugu celiyey Karim Benzema. wuxuu darbad xoog leh qabadsiiyey goolka, wuxuuna goolka ku dhaliyay. ciyaartiina wuxuu ka dhigay 2-1, waxayna ahayd daqiiqadii 76aad. alla ninkaas muxuu laacib yahay, waa laacibka laacibada. ninkaas waxaad moodaa sidaan hore idinku sheegayba 15 jir. 15 jir bir ka adag, bir ka adag. 15 jir bir ka adag baad moodaa. waxayna arkeen in kooxdan la dhaafi karayo lagana badin karayo. mar kale ayaa afka ciida waxaa loo daray kooxdii Paris Germany. markii ay ahayd daqiiqadii 78aad ayaa mar labaad Karim Benzema hadda waa Karim Benzema
saddexleydiisii ka dhaliyey kooxda Paris Germany. alla caawa maxay ahayd waa habeenkii ay laacibada waaweyn ee Paris Germany ay ooyeen. gool saddexaad iyo hat-trick ayuu ka dhaliyey wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3 hadda waa 3-1 alla maxaa ku dhacay kooxdii. haddaba waxay sidaas kaga taqallustay kooxdii carabta ahayd ee lacagta iskala fadhiday Paris Germany iyo miisigeedii iyo neymarkeedii iyo dhibembeheedii wixeediiba intii sidaa loo qabtay oo sidaa loo cajumay baa sida xanjada sidaa loo calaashaday bajuq nimankii waxbaa ku dhacay dee anu kama sheekayn karayo wixii caawa nimankaas helay ilaa hadda way ooyayaan. waxaana laga cidhib tiray koobkii UEFA Champions League la islahaa nimankaas Paris Germany cidna qaban kari mayso. hadda waa laga taqallusa waxaana ka taqallustay kooxda championkan samaysatee Real Madrid. waa nimankan yagaa bahalka iskale nimankan Real Madrid cid yagaa iskale bahalkaas. markaad aragtaan kooxaha kaloo Real Madrid championka waxaan lagama gaadho. championka yadaa samaysata yada gacanteeda ku samaysata. hadda Real Madrid yadaa samaysata baan idin yidhi bahalkan yadaa samaysata cid ku qabsan karaysa cid ka kooba badan oo Champions League ku qabsan karaysa ma jirto. waxa kale waa dad iska waxba ma qaban karayaan laakiin markaasi bahalka yagaa samaysta baan idin yidhi. dhanka kale kooxdii Man City iyo kooxdii Sports ayaa caawa waxay ku soo dhammaatay ciyaartaasi 0-0 gool la'aan maadaama ay kooxda Man City ay ciyaartii hore lugtii hore hadday istay soo shaqaysteen 5-0 ku soo xaaqeen. maanta waxay dhahaan anagu uma baahnin wax gool iyo waanu ka dharagnayoo jeega u seexdeen waa iska seexdeen nimankaasi. guulba uma baahnaynba. hadda guulba mar hore soo shaqaysteen mar haddaad soo shaqaysto lacagtaadu jeebka kuugu jirto dee shaqo uma baahnid waa iska seexanaysa. afrikaanka oo dhan baa lagu yaqaanay nimankana carab weeye iska soo qaadatay jawaano bahalkiiyo jawaanadii shidaalkii carabta iska haystaano lacag baa u tiirsan kartoomo jawaano bakhaaraad buuxa lacaga. marka waxay dhahaan anagu wax guula ma baahnayn horaan usoo shaqaysana. marka jagada u seexdeen. warka ciyaaraha intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa. haddaba waa anigoo ah dee yaa miskiinkiini subscribe-ka like-ta iyo share-ta iyo commentiga saaxiibayaal dee cimaamada ii saara dee cimaamada dee